مقاله oo aad u muujiseen urur siyaasadeedka mideeya iyo madaxdiisii oo maanta xaruntiina idinku timid waxaan idinka codsanayaa rajaynayaana codkiina boqolkiiba boqol inaa mideeya siisaan soo siin maysaan xarfa soo mideeya maahan mideeyana waa xarfo waa isleenahay waana guuleysanaynaa hadduu ilaah yiraahdo waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada xarfo oo muujiyay geesinimo muujiyay dhaxdhaxaadnimo way iska adagtaa gudoomiyaasha kale inay u yimaadaan ururada mucaaradka laakiin ninka uu nigeysay insha Allah haddii dawladdu ay hayn weydana mideey oo u furan yahay mar walba waa diyaar baan nahay waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan ciidankii amniga sugayay booliiska taliyaha saldhigga iyo dhammaan ku-xigeenkiisii raggii halkaa ka shaqeeyay oo la shaqeeyay guddiga mideey aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa inaga soo daahnay waa ka cudur daaranaynaa laakiin inaan maanta inay nimid waa ku faraxsannahay madaxdu laamiyada inta badan martaa laakiin nidaamkan dawladdan ay keentay oo ah in dadka ay wax doortaan waxa ugu weyn oo laga faa'iidayaa in laamigii laga soo dego oo dadkii loo yimaado oo codadkooda la weydiisto maanta anoo madaxweynihii marti inay ah waxaan rabnaa inaad dawladda si ay u fuliso qorshayaasheeda iyo himilooyinkeeda fogfog oo ugu horrayso in dadka iyo dawladdu isku soo dhowaadaan si baahiyaha dhabta ah looga jawaabo dad la doortay oo lala xisaabtami karana loo helo runtii arrintan dadaalkeedii meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii guntiga dhiisha isaga dhigtay ayay magaaladan iyo degaankani gaar ahaan uu yahay wax walboo cusub dad fara badan baa khatar ka muujiya dad baa mooda waxay haysteen inay ku waynayaan laakiin inta badan oo rajada ka qabta inaysan waxaysan haysan ku helaysaa badan baan filayaa marka fursaddaas waxaan rajaynayaa fursad loo sameeyahay inay noqoto wax ka weyn ma jirto inuu qofka cidka u arko munaasabka inuu dhaho qofkaas ay matalaan ololaha waxa ka reeban oo laga mamnuucay in wax qabad degdega iyo xoolo nooc kasta ahaadeen cod in lagu raadi ama community ama deegaan inta loo tago in la yiraahdo waxaasan maanta ku siinayaa ay oday sidaas waa corruption waa mamnuucna waxyaabaha laga reebay ololaha ay ka mid tahay oo ka mamnuuca inta ay socoto ololahaas iyo doorashadaba waa in aragtiyo qorshayaal wax qabad ballanqaadiyo mustaqbal oo maangala ciddii qabata xukunka dawladda hoose ay u ballanqaadaan dadka qorshayaasheedana waa caddaysa laakiin maantaan waxaa ku siinayaa codka waxaan gelinay khanka suqmaasar sidaas darteed iyaduna waa reebanta waxaa lagu tartami karaa oo keliya waa aragtiyo qorshayaal waxqabad iyo in ururku uu soo bandhigo qorshihiisa iyo waxa uu qabanay dadkuna qorshayaashaas ay ku kala doortaan taas waa iyadana waa fariin kale